ololahaas ayaa waxa lagu baneynayay meheradaha ganacsiga iyo kolayada jaadka ee ku yaala wadada hareeraheeda ee xaafada kaalinta 8aad ee degmada Maxamuud Haybe iyadoo mas'uuliyiinta degmada Maxamuud Haybe ee magaalada Hargeysa ay ololahaasi kala qayb qaateen wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa xogayaha fulinta dawladda hoose iyo mas'uuliyiin kale waxaana ujeedada ololahaasi ay ahayd sidii kor loogu qaadi lahaa bilicda caasimadda Hargeysa isla markaana loo hagaajin lahaa guud ahaan nadaafadda bulshada gudoomiyaha degmada Maxamuud Haybe Maxamed Cabdilaahi iyo xogayaha degmada Cabdiqani Axmed Cali iyo Leila Kabataani oo kamida gudida nabadgelyada ee degmada Maxamuud Haybe ayaa ka warramay ololahaas isugu jira nadaafadda iyo banaynta wadooyinka waxaana ay bulshada degmadaas ku nool uga mahad celiyeen sida ay ula shaqeeyeen dawladda hoose kelmadeedu waxa weeyaan waa mahadnaq weeyaan waxaynu soo qabanay hawshii layno igmaday ee qaranka waa hawshii oo amarkeeda lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo gudida qaran ee loo xil saaray taasoo inagu hogaaminayeen inagana maayirka caasimadda maayir ku-xigeenka iyo xogayaha fulinta aad baan ugu mahadnaqayaa dhamaantood oo arkaysteen inay practical gacanta ula galeen hawsha oo xashiishkeena la gurayeen oo nadaafadda ka shaqeynayeen iyadoo ujeedadu tahay ka hortagga cudurka coronavirus hawshaasaynu wadnay macadadweynaheena halkan waxaanu kaga wargelinayaa sida caafimaadka uga shaqeeyay leeyahay ee loola shaqeynaya ee xashiishkii loo gurayo ee nadaafadda loo dhowrayo iyaguna in ay la shaqeeyaan dawladda aad baan ugu mahadnaqayaa dadweynahan degmada Maxamuud Haybe oo dad akhlaaq leh oo aqoon leh wayna garab galeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida ay si ka badanna way noola shaqeyn doonaan insha Allah taala waarkaysa qiimaha dadkaasi makhaayadii waa la wada laabay kolayadii waa la wada laabay boqolkiiba 90 way inala shaqeeyeen dadku halkan maanta laba shaqays barkana oo ka fulnay ka maamul ahaan labada shaqo kala ahaa tii alla inaguma keenay xanuunkan faafa ee COVID-19 kaas oo meheradaha qaadka iyo marfishada la isugu yimaado meelahaas aynu ka wacyigelinay waxaa nadaafadu nisfu min al-iimaan nadaafadu waa qayb iimaan kamid ah daaweyntaana ka wanaagsan ka hortagana ka wanaagsan daaweynta waxaynu idil ahaan ku baraarujinaynaa dadweynaha xaafadda nafteena iyo naftoodaba inay nadaafadda ilaaliyaan maayir ku-xigeenkii cid kale hadhimo jirto waxa gacmaha loola tagay ee lagu socdo qofna dan gooniya ma wate danta bulshada ayuunbaa loo socdaa bulshadu waa inay u hoggaansanaataa waa inay maxay ahayd yaqiinsanaataa waa inay marka hore Ilaahay isku xidhaa marka xigtayna de waa sal sheeg Cali salaatu salaam wax waliba waxay leeyihiin ka hortag Nabi Maxamed sheeg Cali salaatu salaam ka hortaga waa inaan dadka la qabsanin oo laga moodin in dan gooniya la leeyahay wax dan gooniya la leeyahay ma jirto nadaafadiina hagaajiya kala durka maqaaxiya ragga hal la joojiyo jaadkan hal iska yaradaayo